daawadayaal xukuumadaha Somaliland waxay maalnimadii shalay ay sheegtay in ay xidhay xadka Somaliland iyo Ethiopia laakiin labadii xad waa Somaliland iyo Ethiopia ma jiro xad la xidhay dhinaca Ethiopia-na waa loo talaaba karaa dhinaca Somaliland waa loo soo talaaba karaa oo dadkaasi waa kuwa qulqulaya halkani waa bartamaha xadka Somaliland iyo Ethiopia ee magaalada Wajaale oo hadda ku suganahay dadku saasay uga soo qulqulaya dhinaca Ethiopia dhinaca Somaliland oo soo talaabaya sidoo kale dhinaca Somaliland ay ka talaabayaan halkan animka taaganhay waa labada xadhig ee Somaliland iyo Ethiopia dhexdooda waa halka toga yani geedkaas caanka ku ah iyo togaas dadku saasay dhinaca Ethiopia uga soo qulqulayaan dhinaca Somaliland waa laga talaabaya labada dhinacba marka taas waxay ka dhigan tahay in labadii amar ee xukuumadaha Somaliland iyo Ethiopia labaduba ay ku sheegeen in xadku xidhan yahay aanay waxba ka hirgelin oo dadku ay isdhex marayaan sidoo kalena arday reer Somaliland ayaa iyaguna xadkan si weyn maanta uga soo talaabaya labada dhinacna wali way sufran yihiin oo wax la xidhay oo ilaa hadda lagu muuqda ma jiro labada dhinacba tusaale ahaan shakhsiyan ana u talaabay